آمين 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله هذا حق الله هذا حق الله حق دائم الله حق دائم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله هذا حق الله هذا حق الله حق دائم الله حق دائم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله هذا حق الله هذا حق الله حق دائم الله حق دائم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اللهم ارحمه وعافي عنه واكرم نزله وسلم الخلق وسلم بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس آمين زوج خيرا من زوجته آمين ونعوذ بك اللهم يا رب العالمين من خلل تحتي آمين اللهم اكله دار خير من ذلك آمين 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 وأعز يا رب العالمين من رضيت عنه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طالع
لا إله إلا الله. لا إله. خلاص كسر. labadiina dambe maahine labada hore baxadhe lama gali karayaane labada hore baxadhe dib u soo noqda inigu dib u soo noqda xuseen soo soco xuseen soo dirga أرتر صفين هو استحق sidii qodobada warka aan ku soo sheegayba janaasada qoryare ayaa xalay dalka soo gaadhay abwan aadan cilmi good oo ku magac dheeraa qoryare allah u naxariistee waxa uu ku geeriyooday xarunta waddanka Itoobiya ee Addis Ababa sabtidii aan soo dhaafnay dhabaha diyuuradaha waxaa joogay xalay boqolaal qof oo ah saaxiibada ehelada iyo qaraabada marxuumka waxaana ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda ee ka qayb gashay aaska marxuumka allah u naxariistee qoryare gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed iyo wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta iyo
xubno kale oo ka tirsan dowladda. abwaan qooryare waxa uu ka mid yahay abwaanada aadka lagu xusuusto halgankii dheeraa ee xornimadoonka ah oo kaalin faneed oo mug weyn leh uu kaga qayb galay sidii jamhuuriyadda jabuuti ay u hanan lahayd gobonimo. kadib kolkii lagu tukaday janaasada marxuumka waxaa intaasi kadib loo qaaday xabaalaha beekaaduus ee duleedka degmada belbela halkaasi oo lagu xabaalay. boqolaal qof ayaa ka qayb gashay aaska marxuumka oo u badnaa bahda fanaaniinta oo aada uga tiraayeysan geerida abwaanka. هذا حق الله حق دائم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا حق الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا حق الله. waxaa uu dubdhaxaad u ahaa fanka jabuuti waxaana uu ka mid ahaa fanaaniinta ugu magaca dheer dalka isagoo door faneed oo la xasuusta ka qaatay halgankii xornimadoonka ahaa ee dalka. allaha u naxariistay abwaan aadan cilmi good qooryare waxa uu yahay muwaadin si weyn ugu shaqeeyey qaranka isla kolkaana kaalin weyn ka qaatay halgankii dheeraa ee gobonimodoonka. haddaba aadan faarax samatar oo ah guddoomiyaha ururka bahda fanaaniinta iyo cumar cali oday ayaan galabta ka wareysanay taariikhda marxuumka allah u naxariistay waxaana hadalladoodii ka mid ah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt. wuxuu ahaa abwaanadii aan la soo dhaqmay soo wada halganay kii ugu dambeeyey weeyaan. waxaan anugu ka mid ahay markaa kuwa ku rafiiq waaye ku saaxiib waaye ka mid ahay. ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatulfirdowsa. taariikh aan duugoobayna uu ku leeyahay dalka waxaa ka mid ahoo kow ah oon la iloobi karin intay jabuuti jirto, intay gobonimadeedu jirto, intuu calanku taagan yahay. taariikh aan la iloobi karin ayuu ka tegey. waxa weeye heesta calanka lagu salaamo ee astaanta inoo ah weeye. heestaas duugoobi mayso, bedelmi mayso. waa mahadho taariikhda weeyaan. ta ugu weyn weeye eriyaduu leeyahay, eriyada ayuu leeyahay murtiyeysan ee tilmaamaha leh, tilmaamaha calanka ay ku jiraan ayuu leeyahay marxuumku. inaa lilah wa inaa ilaahi raajicuun. saaxiibkeen aadan cilmi qooryare naxariistiisana allaha siiyo. haddii aan maaragtay sahal haleela uga waramo saaxiibkay run ahaa waqti dheer baan isbaranay. kasokow haddaan maalin tilmaamo fanka waxaan soo wada gallay 1971 oon dhignay riwaayadii ugu horeysa oon ku dhignay silmule baari. halyay aadan qoorow halgamihii xorriyadiiyo guusha hanashadeediiyo hal abuurkii qarankow. geeridu xaq weeye allaha kuu hadheeyo harihii qulqulayiyo hadowgii farduusaad aadanuu ku hoyo oo hoygaa jannada noqoy. hoyga
hagaaja noqoy kan halkiisii tabayow geeridu xaq weeye calankeennan hibada leh habeenkii uu kawsaday ummadduna haraadnayd kuudadeen hareeraha heegada aan saarnee hinjinay u sara kaca hal abuurkii tiriyee hurdada iga kiciyee farxad aan la heesow hoygaa jannada noqoy macallinkii halqabankiiyo calankeennan hoobaan haybaddii iyo sharaftiiyo hidisihii uu leeyahay ummadda u hegaadshe heestiisa barayow geeridu xaq weeye allaha kuu hadheeyo harihii qulqulayiyo hadigii fardowsaad aadanu ku hoyo oo hoygaa jannada noqoy faatixa ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun abwaan qoryare allah u naxariisto maxamed daahir oo stuudioga xilligan igu weheliya muddo dheer ayaad istaqaaneen marxuumka kharuur diq ballaarana ee bahda fanku way wadaa war runoo muddo dheer baan isnaqaanay aadal cilmi good qoryare waad garanaysaayo adeecadda wariyayaasha iyo fanaaniintu waa dad hawl mida wada haya hawsha aan wada haynay wuxuu ka mid ahaa dadka tirdhexaadka u ah nimanka tirdhexaadka u ah isagiiyo abwaanidii waaweynaya dalka kolkaa isagu wuxuu ahaa nin dareen badan oo wadaninimo oo guumaysi neceb oo gobonnimo jecel oo aad iyo aad waddanka u jecel kolkaa anigu yaan odhan lahaaba abwaan isagu yar oo iminka soo korayo maxamed cumar buux ayaa maanse u tiriyey waxaan ka dhex arkay inuu taariikhdii iyo dareenkii qoryare in ay aada ugu duxday oo uu aada uga shekeeyey bal maansadaaban akhri doona wuu yidhi maxamed cumar baruur diiq weeyaan qurleyda ku nool arlada inuu waalayn qofnaba ishaba ruuxuu la qaban anigoo qirayo ogsoon haddana qarqaryada indhuhu waxay la qubeen ilmada abwaan nagu qaaliyo qaayo badan baa tegee adaa qaadiree allow qabriga qoryaro u nuur taariikhdu waxay qortaa qof waliba wuxuu taro hawl wuxuu soo qabtee quruxda abbaarka maanso cabirka iyo qeexadeeda halyey loo wada qiro murtida qaadaa dhigo abwaan qaranaa tegee adaa qaadiree allow qabriga qoryaro u nuur adaa qaadiree allow jannada webiyada qulqula qoryaro ka waraabiyo qumarow nebigaad jeclay intuu qaabilo ka yeel allahuma salli wasalam abwaan qoryare dhabtii dareen loo qushuuca iyo halhays degdeg loo qabto bulshadu qanciyuu lahaa fankoo qiimo yeeshuu jeclaa dalkoo qaniyuu jeclaa abwaan amaan qabaan wax qabaabulo han iyo qalalo wadani qalbi fiican buu ahaa la qadariye buu ahaa astaan qaran buu ahaa waa ereyga meesha dhadhanka ugu weyn wuxuu haddaba ahaa qoryare astaan qaran wuxuu tilmaamayey qaranka jamhuuriyaddii wuxuu qoryare ahaa ninkii dee heesta calanka waddanka qaaday sida abwaanida waaweyn iyo dalkuba ay wada garanayaan kolkaa qoryare wuxuu ahaa arrinta aada iyo aad maansada uga helay waxa kaloo ka mid ah wuxuu ahaa nin doogta kolkaad wax halkaa ka samey tiraahdi sida uu ula helaayo halkii uu abbaarayo ayaad ka yaabaysa waxaa ka mid ah mar annagu aan allah u naxariistay isla joognay waxaan maalin ka fikirnay sideen dhalinyarada u jeclaysiinaa waxbarashada kolkiiba halkii ugu sameeyey waa wehel cilmigu waa iyada dambeed weynaatibu waa baharsadiyo walaalku noqdaa marna waa wadada warra iyo xumaha kaa weecisee waar hooy waxbaro intaad weli yartaa intaas waa inta uu ugu talagalay dhalinyarada dadka da'da yar kolkaa dadweynaha xitaa waaweyn aad buu wuxuu ahaa nin dadka wixii xuna ka waaniya wixii wanaagsanna u waaniya kolkaa waxaa ka mid ah barnaamijka etel magaalo kale wuxuu ahaa barnaamij u jeclaa
waxa dhibaysay inuu arko meelo uskag oo magaaladiisii ka mid ah inuu arko ayay dhibaysay taasaa awal lahaa dareen dadweynaha uga weyn jacaylka wadaninimo waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed daahir barnaamijka iyo warka saad inogala qayb gashay taariikhda inooga warantayna waan qaryare allah u naxariisto naxariistii janna allah ka waraabiyo ayaynu leenahay intii uu ka baxayna samir iyo iimaan ka siiyo